Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaanu baranaynaa habka WhatsApp-ka dhexdiisa looga sameeyo ama adoo WhatsApp ku jira fartaada looga dhigo bold, italic, wax kastood kombiyuutarka ku jiro kaga maarmi kar lahayd. Waa tahay for example waxaanu soo furanaynaa WhatsApp-ka. WhatsApp-ka markaynu soo furano qofka doonaysa inaad wax u dirto ayaad taabanaysaa. Qofka doonaysay inaad wax u dirto ayaad taabanaysaa. Markaad taabato for example inankaas waa tahay waxaanu diraynaa waxaan doonaynaa kale inuu farta jiifino. waxaad oranaysaa slash ta yaryar ee jiifta assalaamu calaykum haddana send waad aragtaa farta jiifta fartan doonayna rasiin ka dhignay iminka oo intaa ka duuno waayahay waxaad leedahay xidig assalaamu calaykum anada xidig waad aragtaa isku mid maaha taana waa khafiiftana waa rasiin waxaan rabaa inaad jiifiyo rabaa waxaan sameynayaa allahumma salli ala muhammad calaamadda yar baa soo furanaysaa ee xariijinta yar ee kala qalooda assalaamu calaykum aad qoraysaa haddana isla calaamadii ayaad ku soo xidhaysaa wuu dhexdu ka xariiqay waad aragtaan waa tahay haddaba habkan goormay muhiim ku tahay markaad rabto kale inaad dadka u kala saarto qoraallada kala dirayso for example waxaad qoraysaa waxbarashada kadib halkaasaad ka dhigaysaa ciwaan bayn doonaa ka dhigna dee dadkii u kala saarno waa tahay hoos baad usoo degaysaa waxbarashadu aad ayay muhiim u tahay waad aragtaan taana saasaad oranaysaa allahumma salli ala muhammad inaad jiifiyo wataa iyadana waan jiifiyey wataas haddaba habkan waxaad ka baranaysaa wax kasta ood uga baahnayd kombiyuutar adoo qofka wax uga dari lahaa weliba adigoo ku dhex jiro WhatsApp-kaaga fadlan haddaad ku cusub tahay channelkan subscribe garee like saar siina share garee wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.